السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيات يوتيوب أين سلامي عاشق إنه حكسب سيهاي إن كاجا جواب سؤالي أرتدي يقصوا علينا أدي ويدين أو إن جوجل أدسنسيga إن مكو حيرك على بايبل إن فريدم إي جوجل أدسنس هامن مكو حيرك على جنال كيجا واحد وقال إن لبضة وحي كده حيو وحي كل دوهين أيا إن شرح دونا داوش ونكسن waxay ogaanaysaa inta badan markaa soo furo google adsensiga intaan cashirka bilaabin waxaad ogaataa labadan janaal haddii aad u baahantaa inaad cashir la socotid subscribe ayaa ku sameynaysaa kadibna gambaleelkaas ayaa ku dhufanaysaa jeega ayaa saaranaysaa kadibna save ayaa leedahay sidoo kale oo kale labadaba waa soo geliyaa inkastoo waqtiga aad igu yaryahay kan raal ahaada google adsensiga dadka badan markaan dhahay kun subscribe waxay u maleeyeen inaan dhaha qaabilaadaada xariisanaysa registration aan ku sameynaysa youtube-kaaga kun subscribe kadib lagu qaabila ani ma ahan hadalkii sida u dhahay waxaan u farsharaxay waxay tahay kun subscribe waxa markaad gaartid ayaa lacagtaada qaadanaysaa laakiin inta kale waa registeraysan tahay dadka qaar waxaa laga yaabaa subscribe inay maalin kasta helaan dadaa laga yaabaa inay subscribe helin oo views helin marka ani waxaan la hadlayaa qofka janaalkiisa subscribe-kiisa yaryahay oo viewskiisa yaryahay lacagta uu shaqeeyo $1 $5 $10 $100 wixii uu shaqeeyo siduu ku heli karaa lacagtiisa google adsense freedomkan waxay tahay freedomka waa partnership oo hoos tago googliga meeshan waa shirkad iska leh google adsense ayadaa youtube iska leh ayadaana lacagta dadka siiso laakiin shirkadan waa qayb ka mida waa adoo u tagtay google adsense shirkad qayb ka mida ayaan u baahanahay partnership dadka wadankayga jooga soomaaliya kale ani hoos imaado ayaan lacagta siinayaa marka adiga website u samaysatay oo youtube-kaaga lagu soo darsaday dadka aad qaabilaysid lacagta ay shaqeeyaan oo youtube-ka lagugu soo diro oo qaybtaada aad ka goosatay ayaa ayakana ugu diraysaa sida lacagaha laga isticmaalo avc ama sad ama sahal sida lacagaha mobilka lasugu diro soomaaliya kale waa sidaasoo kale marka baybalka kusoo haray baybalka lacagta low freedomka ay kugu soo dira ama shirkadaha partnershipka waxay kuu fududeynaysaa waxay tahay bangi iyo bosto iyo shuruudo badan oo google ku weydiin lahay tan kale waxay tahay google adsense ani ma igu xirno youtube-yadeeda dadka badan waxay weydiiyeen bangiga google adsense sidee loogu xiraa way fududahay laakiin ani bangi youtube ma u isticmaalin qaybtan adsensiga inaan bangigayga ku xiro laakiin adsensiga sababta u nacay oon ugu taga waxay tahay inaa fahamta isku day waxay tahay adiga oo ku sameynin kilig ayay marka qaarkood wuxuu ku leeyahay youtube-kaaga kilig ayaad ku siisay adsensiga kugu xiran marba haddii 2 jeer 3 jeer automatic ku dhahaan adigoona taabanin waxaa laga yaabaa in ay isdhahaan qofkan lacag ayuu rabaa inuu youtube ka sameeyo oo kilig gacantiis ku siiyo way kaa sheekanayaan marka waxay isku dayayaan inay suspendi kaaga sameeyaan ay kaa xiraan youtube-kaaga janaalo badan ayay sidaas sababtaas u xireen marka hamigaagii oo youtube-ka ku furatay dadaalaysa shaqaynaysa intaas muddo oo lacagta sugayso lagu janaalka waa laga xiray macnaha waxaad dareemaysaa inaad khasaaro dareemaysid iyo dadaalkii kaa baxay inaan wax ka guulaysan laakiin kuwan waxay ku fiican yihiin shuruudda adiga kilig maba lagu fiirinayoba howshaas dhan qaladaadka badana ay tixgelinayso google adsensiga kuwan waxay fiirinayaan in ay helaan dad haddii copyright lagu helana ganaaxa ay bixiyaan google adsensiga kuwana ka ganaax fudud tusaale hadda janaalo badan ayaa wax lagu soo copyright la siiyay saasay tahana adsensigooda wuu sii shaqaynaa ganaaxooda ayagoo hadda adsensigooda wuu sii shaqaynaa qaarna adsensiga si toosa wax laga xiraa adsensiga meeshii lacagta ku shaqaynayna waa laga blogareynaa qaybta doolarka ku sawirayna waxa laga dhigaa calaamad waxaa la saaray aan shaqaynin oo kale lagu garto inuu doolarka madow isku bedelo greenka kaliya ma aan waa inuu isku bedela calaamad kale oo doolarka cancel dadkana waa in ogaadaan subscribe-ka kuma xirno freedomka iyo scale-upka inaad wax yar haysato views yar haysato qaabilaadana waa fursad nasiib waxaa ku soo haray google adsensiga waa inaan bosto leedahay waa ina address leedahay aniga hadda ijeedid inta badan adsensiga isticmaalo waa maraykanka wuuna ka fiican yahay qaybta lacagta markaa sameynaysid address haddaa haysa qof maraykanka joogo adresskaaga igu buuxi kaar bangi waxas dhimala haddii qof kalsoontaa wadamada yurub jooga ama wadamada jooga adresska keliya ayaad ka qaadanaysaa kadibna kaarkaaga bangi ay bixiso wadamada bangiga soo muqdisho la keenay iyo dahabshiil bangi kaarar ayay bixiyaan bangi haddii aan ka heshid lacagtaada inaad ku heshod aniga kuma dhihi karo shirkadaas laakiin
bangiga hadda laga furay Soomaaliya magaciisa ma xasuusto. kaas haddii aad bangiga ku xirtid automatic ma ku dhahay bangiga meeshaas ku yaala, laakiin wuxuu kuu sheegayaa inaad ku xirtid adresska ku xareysay lambarka lacagtaada si toos ah meeshaas kugu soo dhicisaa insha Allah bidna kariim. muhiimadana subscribe kan ka hadlay freedomkan waa shirkad hoos tagto youtube-ka. su-aasha ugu dambeysan ka jawaaba waxay tahay wuxuu dhahay qofkan ma isku xiri karaa videoga midna ma ku xiri karaa freedomka midna ma ku xiri karaa asensiga. waxaad ku xiri kartid ma ahanba asensiga ayadaa iska leh meesha, ninkana wuu kareystay adiga kuu soo fudeeyey inaad lacagtaada ku heshid si sahal ah inta aad shaqaysaba, ama ha badnaato ama ha yaraatid. meesha oo google adsense kugu dhahayo lacagtaada markay $100 gaarto ayaa lagu soo dirayaa. dadka badana lacagta loo bilaabana ku subscribe markaystaan ayaa lacagta loo bilaabaa. inta kale lacagtaada way ku kaydsanaanaysaa. inta kale google adsense haddii aad gasho lacagtaada way kaydsanaanaysaa. markaa subscribe kun gaarto ayaa lacagtaada lagu bilaabaya insha Allah biina kariim. ka faa'iidaysi wanaagsan. wixii mataqaanaa fahmi weysaan fadlan inaan idiin soo faafayaan isku dayaa. dhammaan muhiimadan ma ahan in aan mataqaanaa waqti iska dhumino. muhiimadan waxay tahay inaan dad walaalo kala faa'iidaysano. muhiimadan waxay tahay inaan naftaada u sheegtid inaad wax kasta fahmi kartid, wax kastana qaban kartid. marka yaa iskana uma fiicno qofka islaamka inaan markasta hamigaaga sareeyo. insha Allah ka faa'iidaysi wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran.